ururka dhalinyarada ee layidhaa gacanqabad iyo garabka haweenka ee Gaarodi ayaa shalay Sabtidii ku soo bandhigay taageero dhaqaale oo ay u hayaan ka qayb qaadashada dhismaha wadada cad ee isku xidha caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa iyo degmada Salaxley waxaana kulan ballaaran oo ay ku yeesheen waaxda Harrow ee galbeedka magaalada London ugu horeystii u furay aqoon-yahan Maxamed Baaruud oo si weyn u soo dhaweeyay dadkii ka soo qayb galay kulankaasi iyo qabanqaabiyaashaba kulankan oo ahaa mid lagu muujinayay sida ay uga go'an tahay dhamaystirka wadada cad waxa uu si weyn u kulmiyay bulshada Soomaaliland ee aadka u daneeya hirgelinta mashaariicda wadooyinka gaar ahaan kuwa ka soo jeeda Hargeysa iyo degmada Salaxley waxaana halkaasi laga soo jeediyay erayo muujinaya sida loogu heelan yahay horumarka deegaankaasi ganacsade Maxamed Yuusuf oo ah aasaasaha shirkadda Bentis ee kalluunka cid walba u furan oo isaguna goobtaasi ka hadlay ayaa aad uga mahadnaqay dadka Soomaaliland sida ay horumarka diyaarka ugu yihiin isla markaasina ku dhiirigeliyay dadkii halkaasi isugu yimid kulankan oo ahaa mid si toos ah dadka dhaqaale looga gurayo isla markaasina la isku dhiirinayo in la dhammaystiro dariiqa isku xidhaya magaalada Hargeysa iyo degmada Salaxley ayaa waxa halkaasi lagu soo ururiyay lacag aad u badan ururka dhalinyarada ee gacanqabad iyo garabka haweenka Gaarodi oo si weyn baryahanba ugu howlaa dhiirigelinta qurbajooga iyo ka soo ururinta dhaqaalaha lagu soo qoray ayaa aad uga mahadceliyay dhammaan qurbajooga Soomaaliland ee ka soo jeeda deegaankaasi sida hagar la'aanta ah ee ay uga qayb qaateen isla markaasina ay jeebka gacanta u galiyeen ka muuqata waxa lagu hayaa check dhan 260,000 oo dollarka Mareykanka oo ay si gaar ah u soo gureen bulshada ay tooska u taabato jidka isku xidha magaalada Salaxley iyo Hargeysa taasi oo ay bulshadu iskeed isku abaabushay isla markaasina ay ugu tala gashay inay qayb lixaad ka qaataan isla markaasina marna aanay ogolaanin inay qabyo ka noqoto dariiqii hore loo bilaabay marka loo eego dariiqyada haatan la bilaabayo waxaa ka muuqda 260,000 oo jeega isla markaasina waxa uu heliya oo jeegan goobjoogka ambassadorka wareega ee Soomaaliland Kaysar Cabdilaahi oo aan wax ka weydiiyay isla markaasina aan weydiiyay bal sida uu arko arintan horta marka hore aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo shirkan muhiimka ah ee loogu ururinayo qaranka wadada cad isku xidha Hargeysa iyo Salaxley runtii bilowgii wadada cad xilli hore ayay muxuu runtii bilaabmatay idii wadooyinka loo badanay bilowga wadada ama dhismaha wadada Ceergaabo iyo isku xidhaysa gobolka Togdheer maaha macnaheedu in wadooyinkii kale la yidhi hal istaajiyo runtii waxaan nahay qaran isku fila qaran aad u ballaaran dhisan kara Ceergaabo iyo meel ka badanba marka xukuumaddu way dhiirigelinaysaa wadooyinkii hore ee loo waday dadweynaha waxaan ku dhiirigelinaynaa inay taageeraan qaranka sida ugu sii ururiyaan dadaalka sida ugu soo bixiyaan sidoo kalena jidka muhiimka ah ee Ceergaabo iyo Burcaan ay ka qayb qaataan kulankan oo ay dad kala duwan ka hadleen isla markaasina la isku dhiiriyay sidii loo hirgelin lahaa horumarka deegaanka degmada Salaxley iyo magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ahaa mid aad culayska loo saarayay in dariiqa isku xidhaya magaalada Hargeysa iyo degmada Salaxley aanu noqonin mid ku sii jira qabiyo Cabdulaahi Maxamed